Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. My friends, kusoo dhawaada channelka. Maanta waxaan casharkeena ku saabsan yahay waxyaabo badan oo ku saabsan WhatsApp-ka. Tusaale iminka haddii aad xagga soo gasho santira content privacy aad kasii taabato, haddii aad doonayso inaad last scene-kaaga aad tusto qof walba ama aad ka qariso, isagaa taabanaysaa. Iminka everyone aniga waa eega keliya my contacts oo keliya haddana eega, haddana anigaa bedelay nobody qofna ma eego. Ka everyone kayga waan ku ceshanay profile photo sidoo kale everyone qof kasta waa eega, my contacts inta ay save garaysan oo keliya eegta, nobody hal qofna ma eego. About phone-ka waxyaabaha ku saabsan aad kusoo qorto adigu WhatsApp-ka markaad samaysanayso xagga yare about-ka ee ka hooseysa profile photo wuxuunbaa eega qof walba, wuxuunbaa eega inta ay save garaysan, wuxuunbaa eega nobody. Saddexda waad ka dhigan kartaa. Status-ka waa sidoo kale wuxuunbaa eegaya my contacts. Haddii aad doonayso daawada halkaa u fiirso, haddii aad doonayso inaad inay eegaan oo keliya intaad doonaysaa ama aad ka qariso status-ka, tusaale iminka inantaa iyo inankaa haddaan doonayo inaan ka qariyo sax xumaan taabanaya bes iyagoon ka qariyay. Marka haddaan doonayo inaan ka noqdana halkiin baan sii taabanayaa okay bes oka hore ku ceshanaya. Calaamadda yare marna saa u shiday marna waqtigii waxay ka taagan tahay haddii iminka tusaale qof message kuu soo diro uuna kusoo diro labada sax kusoo qoro, waad akhriyi kartaa isaguna uu tusay inaan weli aanad adigu message-ka akhriyin. Labada saxan uu soo qoray hadda buluugi maaha, waa labadii saxun waad akhriyi kartaa. Marka taa u bakhtiiso waad akhriyeysaa, isna wuxuu moodaya inaanad akhriyin, kadib baad u jawaabaysaa. Haddii aad doonayso inaad qarisana laakiin waxaa u shardiya inaanad adna arkaynin qofka message kuu soo diray inuu labada saxun isna uu qorayo, waayo saad u dhaqanto baa adigana lagula dhaqmay. Marka daawada casharkeena maanta intaas ku saabsan yahay. Waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka faa'iideen. Intaynu mid kale ku kulmi doono. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.